السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالي حالتك ورمى caafimaadkiina anigu waan nabad qabaa alxamdulilah idinkana sidoo kale ayaan idin rajeynayaa. Maanta maxaa noo wadaa maasha Allah. Maanta waxaa noo wadaa ceesh aad iyo aad u qurux badan ood ku wada heli doontiin oo dahabi ah. Hadi maasha Allah mama inkaga hor dhacay khada fuul maasha Allah oo jimcihi aan ku jimceysanaan lagama sheekeyn karo. Halayla socdo hadaba maasha Allah. Aad iyo aad ayaad uga heli doontiin saan rajeynayo. Maasha Allah inta maxaa noo yaalo anay maanta khada fuul aan samaystay waa 2 kiilo bur ah. Maasha Allah waa u jeediin ma ahana furin xataa waa ina tusaa saana u gadina weel weyn ku qasanaa. Maasha Allah jimco waa iska taqaaniina ku yiri xaafadaha waa la iska imaana asxaabta qaraabada maasha Allah waa la wada imaanaya akaasa maasha Allah lagama sheekeyn kar maanta qadada aan sameeyay wad ka wada heli doontiin sida aniga ugu helay. Inta maxaa igu jiro leebata ama qamiiriso saa u taqaaniin sonkor waxaan ku shubanayaa 7 qaado oo sonkor aan ku shubanaa qaadada yariista ee waa u jeediin sonkortaasaan ku darsanayaa. Ceeshkan aad iyo aad u fudud yahay una qurux badan yahay una macaan badan yahay. Waan rajeynayaa hadaad qada fuul inuu inii noqonayo hadaa maraq aad u wanaagsan sida kan u samaysto kale u samaysatiin. Maasha Allah sonkortu way dhamaatay waa tasaade cusbaan ku daray hadaba waan khasaa biyahan qandac waaye qabow ma ahan way qandacsan yihiin. Maasha Allah waan qasaa akasaa doon isdhex gelinaa oo soo dhamayna waa isku soo laabanayna insha Allah. Waa kana maasha Allah waan soo qasay waan soo diyaariyay waa kaasa gacanteyda xataa wili burkiyay leedahay waa kaasa maasha Allah aad iyo aad uga heli doontiin hadaba waan isku soo laabanayna waan daboolah waa kaasa daboolkiisa aan saaray waan isku soo laabanayna. Inta maxaa noo yaalo maasha Allah khudaartii ayaa noo yaalo salarkii qajaarkii adiga khudaartii aan isticmaali lahay maasha Allah iyo waxa kaloo noo yaalo fruitkii aan isticmaali lahay cabitaanka aan ka shiida lahay waa wada garanaysiina u maleynaa cabitaankan hal ma inkugu sheegi kari. Inta maxaa noo yaalo karoot hal xabaan ku darsanaa waxaan ku darsanaa cananaas waxaan ku darsanaa avocado waxaan ku darsanaa passion waxaan ku darsanaa babaay qare maasha Allah cabitaan isku dheelitiran aad u macaan badan waxaan ku irmaba laga sheekeyn karo. Waa kana inta maxaa yaalo kii khudaartii waa u jeedin iyo salarkii aan isticmaala khudaarta xataa wali waxba dhiman soo dhameystiran waa ina tusaa insha Allah. Bal hadaba qadada maanta sameyn doono inka ma hor dhacay markii aan dhameeyo oon soo diyaariyaan ku ira alaabta aan ka soo tuuri doono wad la yaabi doontiin maasha Allah. Waxaan jeclahay tufaaxaas oo ku jira waxaan jeclahay inaad aad uga wada heli doontiin oo la wada dhici doontiin sida anigaba uga helay maasha Allah. Inta maxaa yaalo jikina isticmaala aniga 2 kiilo iyo bar jikina isticmaala wuu badan yahay waan badanahay maanta maasha Allah family buuxaan nahay ma la sheekeyn karo. Waan dhaqaa waan soo dhaqa markii hore jikinka hadana mar labaad waan dhaqaa waxaan ku daraa bur qaada bur ahaan ku daray cusbaan ku darsanaa hadaba biyaan ku shubaa waan dhaqaa si fiican u dhaqaa burka aad u wanaagsan yahay waxay dhahaan Soomaalida jikinka wuxuu ka dilaa jeermiska. Waa kana hadaba waan soo nadiifiyay maasha Allah waa kaasa wax yar ka haray waan isdhex galiyay waan ku qasay waan ku dhaqay saasa ugu dhaqaysaa ka bacdi markaasaan ugu dhaqdid oo isdhex galisid oo meel walba aad ka dhaqdid asidan ka bacdi baa dhaqaysa oo biyo aad dhex gelinaysa waa si fiican ayaad u nadiifinaysaa jikinka si fiican la iskaga dhaqa dadna cusbay ku dhaqaan dadna bur iyo waxay ku dhaqdaan sida aan oo kale aniga horta bur iyo waxaan isticmaalaa cusbo
saasaan uga bixbixinaa marka haddana biyo kalaan kusii furi rabaa waa kaasaa sasa hal uga bixinaya si uu u nadiifoobo maasha allah haddaba waan kasoo wada bixbixinayaa waan isku soo laabaneynaa insha allah maasha allah waa kana waan soo diyaariyey waan soo wada nadiifiyey biyo waan kasoo bixiyey biyo kalaan ku raaciyey haddaba waa kana aad ayaadu u qurux badan yahay waad ka heli doontiin inta maxaa yaalo khudaartii oo dhammaystiran aan ku samaysan lahay salarkii iyaan ka bixiyey iyo alaabtii kalaan ka bixiyey intii aan samaysan lahay oo maraqa ku dalaca lahay ayaa inta iigu jiro maasha allah yaanyada waa ujeediin haddaba miinka hordhaxaaye saan wax u yeeli doono waa kana wuu qamiirey ceeshkii waa kaasaa gacanta ku celiyey waa gadaala u riixay saanuu noqdo maasha allah waa ujeedaa waa dareemi kartiin inaa celiya aniga maasha allah walaalahayga qaaliga waa kana hadda saliidii aan digsiga ku shubanaya waan dalacanaa saliidda ma iska badinaaye waayo jikinka asagaa saliid leh saliidoo dhalaa markasaan wada ognahaba saliidoo leeyahay marka saliidda intaan ka badan ma samaysanayay waayo waxaan saanay tahan inaa badiyeyba maanta ila tahay maxaa yeelay jikinka aan isticmaalayo iyo ceeshka aan isticmaalayo khudaarta aan isticmaalayo innaba caadi ma ahan aad iyo aad u badan yihiin waa borotiin waa ka wada heli doontiin inta basasha ay ugu diyaarsan basashaan wax yar huurinaya kabacdi markaa basasha isku huurto ayaan wixii aan ku darsan lahaa ku darsanaya hakasaa waan isdhex gelinaa waxaan jeclahay basasha carafteeda maasha allah inay soo baxdo saasaan ugu daboolaa xabaara la isku huuriyaa haddaba waa kana way diyaarsan tahay markaasaa xabaaray karaysaa kalarkeeda wuu isbedelay haddaba maxaan ku shubay yaanyo aniga yaanyada ma aanan jarjarin mana aanan shiidin laakiin sida karoodka camal u hoolay saanay ku macaan badan tahay haddaa jarjartay burburis badanay kaa rabtaa waqti badanay kaa qaadanaysaa haddaa shiididna dhacaankeeda wuu isbedelayaa ma wanaagsanaanayso digirtaasaan ku darsanaa cagaaran ma wanaagsanaanayso haddaa shiidid marka saan ayay ku qurux badanta kuna diyaarsan tahay baabi'isna kaama rabto dadkana hadhowto wax ma usoo gelgelinayaan saan ayaan ka dhigay haddaba waan daboolaa cabaar yar kabacdi markaan daboolo waa kaasaa markay wax yar isku shiilanto ayaan waxaan ku darsalaa ku darsanaa kaasaa maasha allah inta maxaa ii yaala hadda jikinkii waa kanaa uu diyaarsan yahay alaabtii kalena waa taasaa saana iskugu dhex darsada marka waan isku daboolaa ada maqasaya hadda waa isdhex gelinaa bis waan daboolayaa markaa daboolo maasha allah say noqoto waa arki doontiin daboolkiisa u dheereyna cabaar kabacdi waan isku soo laabaneynaa ma inkaga sheekeynaye wax la karinaayo yacni maraq la karinaayo laakiin qaabka aniga aan u samaysto oona iigu shaqooyan aad iyo aad uga helay saan waaye halkaasaa alaabtaan aan ku darsanaa hadda caraftii aan ku darsanaa xawaajigaan aan ku darsanaa masalaha carafta ah iyo waxyaalihii kaloo isticmaali lahay carafta ahay waa kana xawaaji aan ku daray hadda filfilaan ku daray waa kaasaa filfishaan aan isticmaalaa aad iyo aad aan u jeclahay mar walba ilaahay amarkiis filfisha maba ka dhammaan kariba saasaan u isticmaalaa markaasaa inta jumbi ay ugu jiro cusbo waaye cusbadaasaan ku darsanaa waa dareemi kartiin hakuri alaabtan carafta kasoo haadayso borotiinka ay tahay waa kaasaa maba laga sheekeyn karo maasha allah waxaan jeclahay rajeynaya aniga saan uga hel inay adin kara inay qanci doonto mar walba waxaan jeclahay wixii aniga anfaco inaa adin kara inay soo gasho oo inay shaqayso
sida anigaba iigu shaqeyso kale. Markaas mar walbaba ma qasaysid, si fiican ha u qasin. Saasaa xoogaa isku dhex gelgelinaysa waana ka leexanaysaa. Jimco kale maasha Allah ilmaha iyo dadka martida imaanayo qaraabada waa la qanciyaa maasha Allah. mar walbaba waa la qanciyaa laakiin mar walba jika ma geli kari ma duubi kari laakiin markii oo aan u gacan qaado maasha Allah alaab aad ugu wada heli doontiin ayaan ininkaga soo tuuraa. Kabsar caleenta iyo toonta waa taasaa waa tunta waa diyaarsaday haddaan ku darsaday suur halayga raali noqdo qiiq iyo waxaa meesha kaamirada ka dhex muuqda. marka qaraabo ama asxaabteeda qaaliga halayga raali noqdo. hadda saasoo noogu karaa maraqi maasha Allah. haddaba waa kana burkii waa soo kuuskuusay saana kasoo dhigay waqtiga ugu yar awgeed. yacni waana dareemi kartin kuley bur malinii sheegayeen sida loo kuuskuusay laakiin sida loo qasayo waxyaalihiisa kale waa ina tusay maasha Allah. waa kana lagama sheekeyn karo maasha Allah maraqiisa uu karaayo quruxda. baradhaan ku darsanaa baradhada saana u jarjarta aniga jeexjeex ma jecli waayo hilibka aan isticmaalayo yariis ma ahan. marka waxaa fiican saan inay baradhadana kuugu diyaarsantaa si wax dhan qurux iskugu soo baxaan. maasha Allah saasna iskugu soo baxayaan. daboolkiisa dhabka siinay aad iyo aad u shaqeynaa wallaahi. maraq digaaga laakiin iyo waxaas anay gadaal uga darsadaa hore uguma daro. mar walba waxaa fiican maraq digaaga inuu gadaal kaaga shaqeeyo si uusan digsiga salka uga aadin. inkastoo digsigan uusan ahayn digsiyaasha gubanayo. waa kana hadda ku darsaday waa kaasaa maasha Allah. salka ma kaa aadayo marka hadduu saan yahay oo markuu kari rabo kale aa ku darsatid maasha Allah wuu shaqeynayaa mana gubanayo. badanaa maraq digaaga markaa isticmaalaysid digsiga salkoo ka aadaa. waa kana maasha Allah waa soo fidiyey saanaan ka dhigay waqtiga ugu yar gabagabo waaye. marka waan dubaa saana usoo diyaariyey waa soo fidiyey. maxaa noo haray dubitaankiyaa noo haray maasha Allah. waa dareemi kartaa 2 kiilo iyo xoogaa bur ma shaqo yara anigana waqtiga ugu yar. marka saxaabteyda hadduu galab ku noqdo ama aa fahmi weysiin halayga raali noqdo. saana u dabooleysaa mar walba ceeshkaas markaad dubaysid. waa kana hadda birtiyaan saaray maasha Allah waana ku rida kii ugu horeeyay. marka ceeshkan horena waa inii soo gelshay saxaabteyda qaaliga laakiin waxbaa ka dhimanay maalintaas anay ukunaa isticmaalay hadda ukun la'aan isticmaalaa. waa kaasaa burkan wuxuu rabaa ceeshkan markaad sameynaysid inaad saas qaadada ugu wadid shayga aad ku isticmaalaysid inaad saas ugu wadid oo salaaxdid korka ka tataabatid saasuu rabaa. saana usoo fuuraa maasha Allah ma laga sheekeyn karo maasha Allah. saasuu u fuuraa banooni miyaa isleeda banooni saasuu u qurux badan yahay. waxaa la rabaa marba dhinac inaa u gadisid hal dhinac ha u isticmaalin marba dhinac u gadi sida anigaba sameynayo. halkaasaa mar walba saasaa sameynaysaa. birta waxay yeelanaysaa haasasaa burkaas iyo waxaas ugu hooleysaa kabacdi waxaa sameynaysaa haasasaa u marmarinaysaa gacanta si oo waxyaroo qurux badan aad u begi kartid oo kaaga soo baxo. wallaahi lagama sheekeyn karo waadna iga sheekeyn doontiin insha Allah haddaa baraaweysin sida aniga u isticmaalayo amba oo mar walbaba iigu shaqeeyo. halkaasa maasha Allah mar walba saasaa fiican inaa ku wadid qaadada aa u isticmaalaysid saasaad ugu sameynaysaa. mida kale mar walba halba dhinaca u gadinaysaa ma ka leexanaysid. waa kana maasha Allah alaabtii dhan waa diyaariyey. maxaa u haray basashiisii alaabtii dhan wuu isku diyaariyey soo u qurux badan yahay maba laga sheekeyn karo.
والله إنما عادي ما أهن كل وحلوة شيكين كرا قفكي أركو عم بقفكي سميستو كله سيدا أنا قبو سميستي ayaa looga sheekeyn karaa waxyaalo kalena way ka sii dhiman yihiin oon ku dari doono inta maxaa ii yaalo ukun aan kariyey oon soo fiiqo oon soo diyaariyey saasaan dhexda uga gelinaa wuu ku karaa yacni karis ma ahana wuu huuraa waxyar markuu waxyar huuraad ka bixinayaa yacni maraqa ku guranaysaa haddii ukuntiisaan u waaweyn tahay jikankii waaweyn yahay baradhadii balbalaaran tahay waa dareemi kartaa alaab aad iyo aad u qurux badan laga sheekeyn karin ku anficaysa isha kaa deeqayso Soomaali waxay tiraahdaa wixii arugooda ku deeqo ayay untooda ku deeqdaa waa kana maasha Allah saana u soo diyaariyay qadadii alaabtii dhan waa tana wax yar ka dhiman macalha basbaaskiisa uu diyaarsan yahay ku yiri lagama sheekeyn karo inkastoo kaamirada mugdi iga gashay sorry haddana hala iga raali noqdo waa ujeediin way diyaarsan yihiin wuxuu u baahan yahay markaan in la cuno oo kaliya asxaabteyda raqaaliga waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen maasha Allah sida anigaba uga helay fadlan haddaa ka heshay ha iga hilmaamin subscribe-ka haddaa nagu cusub tahay oo hawlo subscribe-ka fadlan haddaa hore noola joogta commentiga sheerta leegta asxaabteyda qaaliga maasha Allah